وقابر يا ووطني وقلكاتايا ووطني وقابر يا ووطني وقلكاتايا ووطني وقضا كرايا ووطني وقابر يا ووطني وقلكاتايا ووطني وقابر يا ووطني وقلكاتايا ووطني وقضا كرايا ووطني عقلي وعنيك كرامة وطير وقرع علمي له وقتي ولا صدى ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني waxaad cadaysaan warkiina waxaad geyseen madan waa
مديسين بنادي هذه محمد حزبي الوطني وي وكان الكديسين وي وكان السلامات اللي كدكتين وي وعندي بلد قاضي إن عبتين يعبتين يحتدين نبا أي مير عطمر الضوطات يالي aad baan u soo dhaweynayaa waxaan ku baaqayaa midnimo waxaan ku baaqayaa cididii weyne meel cad bari doontaan sheegaya waxaan ku baaqayaa maanta jamhuuriyaddeena somalilan sidee loo soo sheegay ama waxaan ugu baaqnay waxaa ka jira cibaaro baahsan galbeedku inay ugu roon tahay halkayna soo gaadhay dadkeennii xabaaraysan oo dhibaataysan oo booliisnayna soo gaadhay inta ay sidayaan waa innaga weyn haddaan awfaysa haddaan calafayna iskugu yimid sida xamaasadda looga soo qayb galay soo dhoweynta gudoomiyaha ku-xigeenka gobolada xisbiga wadani isla markaana ah gudoomiyaha guddiga garabka toosinta iyo cadaaladda iyo afhayeenka hinda jamci gaaniid iyo dhammaan dadka sharafta leh xildhibaanada leh la socda waxaan ku soo dhoweynayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anuu hadalka badin maayo cadaalad darro waan u soo joogay maalintii axmed muumin cadaalad darrada laga galo goobjoog baan ka ahaa barlamaadkiina waan maqlayey cadaalad darra ma shaqaynayso axmed muumin hadduu khaldaya intaasoo ummadda iskuma soo baxdeen intaasoo ummada waxa soo saaray cod baannu doonaynaa buu yidhi ciro intan cidda ku cod badan halkay ka imanaysaa maanta barama maxay baa ka maqan dadkii magaalada lahaa ma joogaan dadkii u dhashay ma joogaan ka naxor nafta waa axmed iyo garabka toosintii cadaaladda guusha leh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan salaamayaa dadka sida wanaagsan loo soo dhoweeyey waxaan isleeyahay maanta magaalada Boorama inay harin waxa weeye waxaan dadkooda boqorkaasay loo soo diray waxaan dhan wada shaqeynaya dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladda soo qabangaabiyey dhinac walba ha noqoto waxaan dareemayaa maanta farxadii ugu weynay garabkii aanu ka nimid eero soo waynamaan ku daayay kaas la garabka toosinta dheematii halkanay ku jirtaa dheematii halkanay ku jirtaa dadkii halkanay joogaa salaamaya boorama aad baan u salaamaya soo dhoweynteeda waxaan horta ugu mahadcelinayaa dareen aan dareemi karo iyo dareen xagga rabbi laga dareemi karo ma cabiri karo shucuurtayda gaarka run ahaan waxaan nagu dhacay aan meeshan ka filaynay waa waxaanu ku ogayn dhiiggiina iyo dadnimadiinna aad ka dhiigayaysaan cadaalad darrada hadh iyo habeenba ka dhacda guud ahaan dalkeenna gaar ahaanna xisbiga waddani hadal waxba badin maayo soomaalidu waxay
tirahdaan nin hadal badiyeyna ma wada odhanin nin yareeyeyna kama wada tegin run ahaantii raggii igu horreeyey baa hadal soo gebagabeeyey oo dhammaystiray laakiin cadaaladdarro meel ma gaadho sanadkan maantaana waa soo afjiristii iyo gebagabayntii tallaabooyinka cadaaladdarrada ee ugu dambeeyey in la gebagabeeyo idinkaana noqonaya gudintii lagu soo afjari lahaa tallaabo dambe oo cadaaladdarro oo dalkeenna ka dhacda walaalayaal waxaan idin leeyahay biidnillaahi kariim fartu waxay idinku taallaa gacantiinna kii idin yidhi cod ma haysaan jawaabteeda waxaan filayaa in laga heli doono gacmihiinna walaalayaal aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa soo dhowaynta ballaaran eed u samayseen guddoomiyaha koowaad ee garabka toosinta iyo cadaaladda toosinta iyo cadaaladda ee garabka waddani aad baan ugu soo dhowaynaynaa gobolka si waxaad muujiseen maanta si cadaalad ku dhisanta aad muujiseen aad iyo aad indhaha macallina annagu kelmaddii nooga toosnayd halkan baan ka odhanaynaa runtii waxaannu aad uga xunnahay in lagu sameeyo garabkaasi cadaaladdarro shirkaa golaha dhexe ee halkaa ka dhacayna cadaaladdarru ku dhisnaa maantii iyo caawiyo berriba waannu sheegaynaa annagu haddaan nahay xisbiga ucud tirada ballaaran ee uu leeyahay geesiga garabka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xalaasha mudane axmed muumiseed waxaan u malaynayaa in cabdiraxmaan ciro uu caaniguu kaban lahaa uu iska daadiyey madinkan uu ku sheegaya ninaan cod haysan madinkan cududan iyo taageerada gobolka ku leh madinkan buu ku sheegaya ninaan cod haysan madana nin cod doonaya oo haddana cod iska daadiya waxaan hadalkayga ku soo koobaya axmed muumiseed isagaa halyeyga xisbiga isagaa mucaaradada u bannaanay culamaada qura mucaaradu mu banaanin axmed dagaal buu kala cadali axmed dhiiggiisuu u shubay axmed maalkiisuu ku bixiyey maalin qura tiifiga makaa maalin qura ma u jawaabay cumar waa maya walaalayaal gobolka reer awdal taageerayaasha axmed muumiseed iyo garabka toosinka cadaaladaba waxaan ugu magaadanayaa inay isay maanta uga soo qayb galeen ee ugu muujiyeen taageeradooda aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan dardaaran ku jeedinaya reer awdal naxariista lagu ogaa waxa lagu ogaa maxayada iimaan saadiqa aynu u gurmano walaalaheena bariga ee ku tabaalaysan abaarta farxad weyn bay ii tahay maanta goobtani suldaanka guud ee beelaha barcafaan madax dhaqameedka kale dhallinyarada iyo haweenka siyaasiyiinta carruurta bacda saxaafadda madaxa bannaan iyo tamixilliga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacda taxiyatul-islaam runtii lama soo koobi karo shucuurtayda maanta farxad bay ii tahay waxaad ka jawaabteen hadalkii ay mustambeedka cabdiraxmaan yidhaahdeen ee ahay cabdiraxmaan wuxuu leeyahay boqolkiiba 70 in ka badan dadka codeeya waxaan leeyahay axmed muumiseed wuxuu leeyahay boqolkiiba 100 dadka codeeya gobolka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa is-abaabulkiinna iyo wakhtiga dheer ee aadna sugayseen bacadka iyo dhaxanta iyo boorka aad u soo baxdeen waxaan jecelahay inaan kelmad qurayda ku soo koobo kelmaddaasoo aan leeyahay weligay waxaanan arag buydhoodayna ii sheegin waa aadan geeloo dawaco kacii wax qaaday weligay waxaanan maqal oo aanan anigu arag guddoomiyihii koowaad ee xisbiga oo sharciya oo uu xilka ka qaaday nin aan ku jirinba gebi ahaanba hoggaanka xisbiyada iyo ka xisbiga wadan gudoomiyaha xaqa waa ninkii gaarsiiyey xisbi qaran urur siyaasadeedkii waddani maantana wuxuu ku waayi doonaa kursiga madaxweynenimo waso sidaa maaha
إلهي رب العالمين يصاب صعديها صوب الأولي مقالة هرقسان إلا أنت تسوق عليني وقتي أنا كاملي إلهي نبتقلين وكاني مقالة كورغا إلهي رولنا هدعلينا مركوري مرك الله بعد وحن معطل نخل على مجالية لما تاقر يا شيدا كل القبل كعوض قارهان مقالة مدحضة ويقول ريان سلطان كيغا iyo uqaasha heerka ama uqaasha gobolka Awdalooda iyo waxgaradka iyo garabka toosinta iyo cadaaladda aan gudoomiye u ahay runtii waxay tiri fariin cad u tahay oo ay fariin u diraysaa hiiliska iyo siilka la garab taagantii marka saad la garab joogtaan walaalayaal maanta waa maalin qiimo leh maanta waa maalin weyn maanta waa maalin ka duwan maalmihii hore aan ku kulmi jiray faraha nooca oo kale way ka duwan tahay waxaad ogtihiin walaalayaal xisbigii wadani ee ka soo baxay ururada aynu ka soo saarnay ee cududiinna iyo awooddiinna iyo dhaqaalihiinna iyo juhdigiinna aad ku soo saarteen maanta waxaa dul hoganaya bar madow baa dul hoganaysa bartaa madowna waxaan u bixiyey waxaa ku soo biiray dad aanan u haynahayn waxaa ku soo biiray dad aan lixijeclownahayn waxaa ku soo biiray dad aanan ugu yeedhay hadhaagii udub aan ugu yeedhay baa ku soo biiray walaalayaal waxaad isweydiinaysaan su'aal baad isweydiinaysaan su'aashaasi waxa weeye tolow xaggay waftigan gudoomiyuhu hogaaminayo ee waftigan ballaarada qiimaha leh ee xubnaha sare iskugu jira ee garabka toosinta iyo cadaaladdu halkee bay u socdaan dalka waxaa ka jira 3 xisbi qaran waad ogtihiin 3 xisbi qaran oo kala afran ma jiro waxaad isweydiinaysaan xaggay u socdaan maxay yeeli doonaan walaalayaal waxaad ogtihiin talada waynu wada leenahay waynu wada tashanaynaa talaynu wada yeelanaynaa waxaynu isweydiinaynaa halka masayrkiina iyo masayrka iyaga inteenu aynu ku aamini doono inagoo garba haysaysana ayaynu caddayn doonaa halkaynu u soconno halkaynu ku hagayno siyaasaddeena dambe
tahay waynu wada tashanaynaa inagoo wada tashanayna oo taladeenu midaysan tahay ayaynu halkaynu masiirkeenna ku aaminaynaa aynu tegi doonaa walaalayaal Somaliland waa dal dimuqraadi ah waa dal madax bannaan aniga siyaasadaydu waxay ku dhammaataa waxayna ka bilaabantaa Somaliland bay ku bilaabantaa Somaliland way ku dhammaataa aniga meel kale laygama maamulayo meel kalena uma socdo walaalayaal qarannimada Somaliland waa muqadas gooni iskutaagga Somaliland waa muqadas waxay danteenu ku jirtaa midnimada iyo qarannimada Somaliland bay danteenu ku jirtaa cidii wax kala wada way soo bixi doontaa laakiin anu masayrkayga siyaasadeed iyo masayrkan iniga wakiilkay nagaga ahayba waxaan ku aaminayaa oo aan ka midaysanahay waa midnimada Somaliland midnimada Somaliland ahay agteena waxba kama noqonayo agteena ma taalo taasaynu ka midaysanahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa qarannimada Somaliland guul baynu gaari doonaa intii hore soo socotay iyo inta dambadaynu hadayna ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaynu guulaysan doono walaalayaal waxaad baad joogteen ilaa maanta aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina lama qiyaasi karo fariin cad bay u tahay gudoomiye Cabdiraxmaan fariin cad bay walaalayaal u tahay waan ku dhaartay maalintii aan ka soo baxay madasha waan dhaartay waxaan ku dhaartay booramay waa inoo booramiyo wadani gobolka awdal waalkii aan ka asaasay wadani waalkii calankiisa aan keenay waalkiisa golaha deegaanka majority ka soo saarnay waalkii kunka qof majority ka soo saaray waxaan ugu faanayay xuduudiina ahayd laakiin lixda gobol ee Somaliland taageerada la iga buujiyay ceergaabo wad la socotiin taageerada berbera wad la socotiin taageerada hargeysa wad la socotiin taageerada ceergaabo wad la socotiin taageerada gabile wad la socotaan lixda gobol asxaab wad la socotaan burco wad la socotaan lixda gobol xuduud baynu ku leedahay laakiin dadka qalad u qaadanaya daarta awdal aan ku dhaartay wataa maantay maragayni ahaato been la sheegi maayo walaalayaal anu makarafoonka wadada ku soo maray ilaa halkaysay ilaa boorma wadada ku soo maray xooliya dadkii waxaan niga codsanayaa waan gudoomiye ahaan magan inagu ahay intiina maanta reer awdalihi nin walba $1 bixi gudida abaaraha ee gobolka awdal nin walba dhalinyaro $1 bixiyo walaalayaal dhibaato waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka waxaan u mahad celinayaa taageerayaashayda waxaan u mahad celinayaa haweenka dhalinyarta saxaafadda madaxa bannaan waqtiga ila socda salaadiinta waxgaradka dhammaan waad mahadsantiin madan nolosha hayn baynu ku kulmi doonaa waynu wada joognaa salaamu calaykum waraxmatullaahi Thank you.
إلهي كشوفينه صار مركز سوق عيني عاصمتك الصبح عيني خليه بدن وبابور الوهاي إن إلهي كشوفينه واتين بتقولي عن مجال كل مني يمكن أن إلهي يبرينه إن السين بتقولي عاصمتي نقول نقطتان وحنقول تطاريا إن ست ترتيبه ونسق وسي سعطان واني مهد عليا سودوينتا يسوع قرب بابك على ديسو بالبسين واتيورين هذا الموجسين هذه بالمالستين كمدة معنا قوم باروكعي سفر ونسب المكيتونا ما كانوا قضينا هدي لا إله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barwaaqada ciida buurame wadarka ka baxayo beeraha babayga ku yaal bustaanada babayga ku yaal bustaanada barwaaqada ciida buurame wadarka ka baxayo beeraha babayga ku yaal bustaanada babayga ku yaal bustaanada udoodaydhaha ubaxa bina bilicda quruxdiyo bidaansiga naftaa u kuseeshay boorame binuhu kugu horay boora udoodaydhaha ubaxa bina bilicda quruxdiyo bidaansiga naftaa u kuseeshay boorame baradii cilmige bariga afrikaay bi'adii raxmadiyo beledkii nabadaay waramay barakiyo balaalayo balaayada baa laga mariyey baradii cilmige bariga afrikaay bi'adii raxmadiyo beledkii nabadaay waramay barakiyo balaalayo balaayada baa laga mariyey